waxaan halkaan ku soo jeedinaynaa war-saxaafadeed labadii isbuuc oo la soo dhaafay gunaanad u ah wadahadaladii iyo doodii dheereyd ee dowladda federaalka Soomaaliya xukuumadeeda iyo madaxweynaha iyo maamulka SSC Khaatumo dhex maray sidaan uu dhigan yahay xukuumadda federaalka Soomaaliya ayadoo gudanaysa mas'uuliyadda iyo waajibaadka ka saaran wadajirka iyo suhaynta dalka waxay marti qaaday hogaamiyaha maamulka ku meel gaarka ah ee SSC Khaatumo mudane Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye iyo wafdi uu hogaaminayo oo heer sare ah si wada tashi looga yeesho xaaladda deegaanka iyo guud ahaan dalka dooda iyo falanqayn dheer oo taabanayay xaaladda siyaasadeed amni bini'aadamnimo kadib waxaa la isla qaatay kow xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay mar labaad taageeraysaa go'aanadii isimada dhaqanka ay shirweynahoodii laascaanood ka soo saareen 6 bishii Febraayo 2023 ayadoona soo dhaweynaysa isla markaana la shaqeynaysa maamulka ku meel gaarka ah ee dadka deegaankaasi ay dhisteen labo xukuumadda federaalku waxay mar kasta ku baaqaysaa gacan ka geysanaysaa dadaal kasta oo nabad iyo xasilooni ku soo dabaalaya deegaanadaas ayadoo wixii khilaaf ee jireen lagu xalinayo wada hadal iyo wada xaajood waxayna maamulka SSC Khaatumo ku bogaadinaysaa sida ay diyaarka ugu yihiin xabad joojinta iyo nabad ku wada noolaanshaha saddex dowladda federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa Somaliland iyo maamulka SSC Khaatumo xabad joojin iyo inay sii daayaan maxaabiista ay kala hayaan waxayna xukuumadda federaalka diyaar u tahay inay fududeyso howlaha arrimahaas la xiriira afar xukuumadda federaalku iyadoo ka duuleysa mas'uuliyaddeeda waxay si degdeg ah ugu howlgalaysaa dib u soo nooleynta iyo tayeynta adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka biyaha iyo guud ahaan arrimaha bini'aadamnimada qodobka shanaad ee u dambeeya xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa hay'adaha dowladda bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in gargaar bini'aadamnimo oo degdeg ah lala gaaro deegaanadaas wabillahi tawfiiq